aniga oo Atlanta ka soo guuray oo Minneapolis markaas soo degay ayaa waxaan kula kulmay meel ay ka shaqeynaysa ayadoo u labisan sida muslimka kadib waxaan yiraahday assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka way fiirse ilama ay hadlin waa iska way mooday marka waxaan qalbigayga yiraahday kuma ay maqlin miya codkaada gam korban u qayli waxaan dhahay assalaamu calaykum sister markaas intay qosasho waxay igu tiraahday I'm not Muslim but I will be one day Muslim hadalkii wuxuu itaabtay qalbigayga one day I will be Muslim maalin baan doonaya inaan soo muslim maalin baan muslim noqon doona way aniga maalintaas gabadhii aan kala imaaday Afrika caruurta ii dhashay hooyaday aabaheed uu igu salimay ayaa biliiska ugu yeerto bas istahiga banaanka loo soo dhigay way marka nin meel uu qabsado la ayaan ahaanta ilaahay manigiisa iyo fadligiisa markii gabadhii aan sidaa iraahday waan la fadhiistay maxaa kugu kalifaa waxay dhahdeen aniga muslimka gabdha muslimiinaan macallimiin u ahaa aad baan u jeclaystay dhaqankooda iyo waxa ay yihiin laakiin islaamka ima ay barin marka waxaan dhahay haddaan islaamka ku baro soo gelaysaa of course waa doonaya waan baxay xoogaa qaxwo iyo maaragtay shaah waxaan soo qaaday miis baan fadhiisanay waan la wada hadalnay waxay dhahdeen wax kastoon u sheego oh is that right that's sax miya oh is that right marka aad bay uga heshay bas waxa dhahay maalin kastana waa ku imaanaya markaan shaqada ka soo baxon kadib waan u imaaday maalintii ka dambeysay maalintii saddexaad waxay dhahdeen diyaar waxaan u ahay inaan islaamka aan soo galo gabadhii waa israacnay masaajidka Abubakar aan geeyay shahaadada loo qabtay aad baa loo soo dhaweeyay gabdhihii muslimiinta hadiyad badan siiyeen waxa la siiyay dahab iyo dhar iyo marka telefonkan ugu sheegi jiray salaada iyo tawxiidka iyo tahaarada dan waxay tiraahday marka telefon igula hadlayso ma garanaay luqadaada laakiin libsigaada markaad ii hor fadhiso waa marka gurigayga igu imaaw ee ibar islaamka waxaan ku yiraahday gurigaada ma iimaani kari waayo only male private am baan kugu arki karaa shariicada islaamka way diideysaa laba qof oo xalaal soo ahayn inaan marka maxaad rabtaa inaad ama isguursano oo marka aan noqdo zawjkaada waxay dhahdeen that's is too hard ma sameeyni kari marka muddo intee lag bay istaqaaneen markaad u soo bandhigayso inaad isguursataan saddex bari oo kaliya saddex bari oo kaliya way maalintii afraad maalintii shanaad waxay dhahdeen bishardi haddaad islaamka i barayso waan ogolahay inaan isguursano alxamdulillah markaa waxaan keenay masaajidka Abubakar aan geeyay meesha maaragtaa meherka noogula sameeyay iyo xafladii maaragtaa guurka waxay noqotay xaaskayga alxamdulillah markaan 3 bilood aan wada joogna waxay dhahay dadkayga gaalo waaye inaad dacwada u sheegtaan rabaa way waa qoyskoodii markaa qoyskoodii way marka aabaheed ayaa ugu horeeyay oo North Branch deganaa oo nin military ahaa waa gobolkan markaa ayuu meel degan gobolkan waa meel Minneapolis u jirto hal saac bar way oo u tagnay odagii waxay ku tiraahday aabo ninkan waa zawjkayga waay lacag reemsina ima siinin oo aan maaragta adiga kugu hadlo waxaan rabaa inaad islaamka aad soo gasho odagii wuu istaagay markaas wuxuu aad u xanaaqsan gadaashiisana qori weyn baa u yaalay way marka waxaan dhahay maanta waa ku dhamaatay way waad ku jirtaa maanta waa ku jira way wuu istaagay 1 2 3 markuu taagnaa ayuu ooyey ilmaha ka soo daateen ayadina way ku dhigtay wuxuu yiraahdee right now I'm here I'm a Muslim ma sha Allah way wax kale oo sheegna ma laha asaguna waa soo kaxeynay waxaan keenay Minneapolis masaajidka Abubakar aan keenay shahaadada loo qabtay dacwadii la siiyay kutubaa la siiyay wuxuu noolaa 3 bilood ayuu gurigeedii kula noolaa way kadib gabar uu dhalay ayaa u imaatay gurigeeda ay geysay hadda wuu dhintay Allah u naxariisto asagoo muslim oo dhintay waxa ku xigtay hooyadeed oo xanuunsan oo dhakhtarka ugu tagnay 3 maalmood aan dhakhtarka la joognay oo shahaadada u qabanay maalintii afraadna way dhimatay
ayadoon hal salaad tukanin oo muslim ayaa dhiganta waxaana ku duugan tahay qabuuraha muslimiinta ee register way waxa ku xiga wiil ay dhashay oo xaaskaaga ay walaalihiin xaaskayga ay dhashay oo aan adeer u ahay hay asagana waan soo wadnay xaafadan keenne markaas wuxuu yiraahday I'm very surprised waxa hooyaday habigan ka dhigay lacag badan maad leedahay taajir ma tahay su'aal uu weydiiyay markaas aan dhahay ma lacag badan ma leeyahay dhahay laakiin hooyada qalbigeeda waxa ku dhacay islaamka oh is that right markaas uu weydiiyay hooyo what he give you this man hay ninkan muxuu ku siiyay haniga muxuu ku siiyay waxa dad he just treats me nice si wanaagsan ayuu ila macaamila diintana wuu ibaraa marka wuxuu fiirin jiray marka hooyadiis ay sujuudo xaggu kursi dhigan jiray aad buu u fiirin jiray you don't hurt your head madaxa kuma xanuunay miya ayuu oran jiray kadibna wuxuu goostay inuu islaamka soo galo maanta waa nin muslim oo daaci ah maaha inuu soo galay islaamka waa daaci weyn oo diinta faafiyo ma sha Allah gabar Soomaaliyan ku dare ma sha Allah Ilaahay waa isu barakeeyay aad iyo aad ayaa maaragtaa de marka qoyskii oo dhan adaa Ilaahay sabab kaaga soo dhigay ilaa 12 qof ayaa oo xaaskaaga qoyskooda ayaa soo muslimtay ما شاء الله ان حدان ku weydiiyo bulshada inteeda kale aad baad ugu warhaysaa Sheekh Ibrahim en sida baa loo soo galaa diinta islaamka imika magaalada Minneapolis waxa loo soo galaa afwaajan marmar gurbiya imaadaan marmar waxa imaadaan qof laba qof saddex qof oo maaragta islaamka doonayo marmar waxa gobolada kale ay nooga imaadaan maaha inta kale masaajid kasto Minneapolis waxa imaadaan maalin kastaba maaragta dad diinta islaamka inay fahmaan oo doonayeen ayaa imaadaan Sheekh Ibrahim muddo dheer baa imika isqabteen oo wada joogteen xaaskaaga bal hadda ka waran nolosha marka lamaanaha ay ka soo kala jeedaan dhaqamo kala duwan xaqii diintii hal iskaga mid ahaadeen runtii waa mid kaliya oo gabdhaha Soomaalida oo walaalahayga aan u sheego ay arrinka ka mid tahay waayo ilaahay wuxuu yiraahday fa ama bi ni'mati rabbika fahadith hadaad hesho wanaag iyo khayr aad hesho adiga kaliya isku koobine dadkana gaarsiin marka famanna Allahu gabadhan ma aha waxaan aniga doortay laakiin ilaahay baa igu maneestay subhanahu wa ta'ala gabdhaha walaalahaygana waxaan u sheegaa gabar kasta oo zawjkeeda macaamil wanaagsan kula macaamisho inaanan weligeed la furaynin marka aniga xaaskayga waxa balan oo noo dhaxtaala waxay igu tiraahdaa hadaad hortayda dhimato jirkayga bini aadam kale ma taabana ilaa aan jannada kugu imaado marka iyada aniga iimaankayga iyo iyada iimaanka way iga iimaan badan tahay waxay aaminsan tahay wixii Ilaahay uu yiraahday iyo rasuulkiisa marka taas ayaa ma aragtaa arrin aad u weyn oo marka wixii kale dhibaatooyin ay ma lahayn xagga dhaqanka meesha ka saaraysaa marka hadduu qofka uu aamino in Ilaahaygi subxaana qaadirka hadduu yiraahdo shanta salaadood gabadha haday tukato ninkeedana baari ay u noqoto jannada waxay ku gelaysaa su'aal la'aan yani arrinka waxay u qaadatay garanti inuu yahay wax aan biyo kale dhibceen marka waxyaalaha ugu wanaagsan oo qalbigayga ay ku qaadatay waxa kamid waxay akhrisataa buugan ay akhrisataa enjoy your life noloshaada ku raaxayso way iyo buugan asagana wuxuu leeyahay healing the emptiness waxa weeye in la daweeyo qalbiga oo waxa meesha furan laga soo bixiyo waxa kale oo aad ay u jeceshahay oo akhrisataa kitaabkan Great Women of Islam waa haweenka magaca leh islaamka soo qabo midka gaarka agtaada ma kan kale gadaal ma buu wuxuu saaray xagga kan waxay aad u jeceshahay buugan you can be the happiest woman in the world waxaad noqon kartaa haweeneyda ugu farxadda badan adduunka waxa kale oo aad iyo aad ay u jeceshahay oo ay akhrisataa oo habeenkii markaan guriga tago ay ugu sugaysaa inay maaragtaa hortayda ku akhriso
kitaabka wives of the prophet وحاسسكي نبيغا عليه الصلاة والسلام واي marka aad bay u akhridaa buugaagta culumta islaamka buugaagta culumta islaamka ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxay diyaar kula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba